وهاجاك بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولا الله صوم لذا ملك السجود تاني يسوع البواد نور لجيس الإنسان وحيد الله هاي صور وهذا الباب كسوقل فريسو قهوة عب شح عب منك وحيد الريح مركو ومنك هذا وحيد الله هاي صور وهذا هدي أي تايم مركي قوة رئيسي وعاد صوب وغنيسو وحن ولا تنمو صوم لنمو وحق صوم لنمو نقول مجتو waxaan ka codsanahay channelkeena subscribe saarto like tana aad ku qabato videoga markuu soo gaaro barnaamijka aad dhameysatana xataa ma sha Allah ay soo qorto dhiirigelin bay ahaanaysaa adiga wax badan ka ma go'ayaan sadaqona way ku tahay inaad qofka dhiirigeliso anyway sida title-ka ku aragteen farxiyo oo ah xaaska dayax dal nuusho ayaa waxay la wadaagtay shacabka Soomaaliyeed mar ay interview ay bixisay in xaalad adag ay nolosheeda soo mareen ayada iyo odaygeeda xaalad adag ay ku soo koreen wax walbana sabab bay leeyihiin sababta videogan aan uga hadlayo runtii adduunka sidiisaba weligiis maanta ma ahan adduunku harka waa labadiisa gelin maanta haddii xaalad adag aad ku jirtid bari bay xaaladdu ku bedelaanaysaa maanta haddaad xaalad fiican ku jirtidna weliga ha u qaadanin noloshaada inaad saas u ahaanaysid bari baad xaaladda isku bedelaysaa waa tilka layaam maalinba adduunka bini'aadanka meel buu joogaa marka marba waqtiga inaan idinka sii dhumiyo runtii farxiyo oo ah dal nolosha xaaskiisa iska celina way ku jirtaa waana qiiro badan waana qof dumarka sidooda waxaan rabaa kale inay la wadaago islaantay ka masayr badan tahay way ka dadnimo badan tahay wayna oga roon tahay ninkeeda dad baa markay arkaan gabadhooda oo xanaaqsan oo masayr badan xanaaqayo nina waxaan ku sheegayaa gabadhaadu markay ku masayrto way ku jeceshahay financial ahaan way ka kabaysaa emotion ahaan way ku kabaysaa mar walbana waxay jecelaanaysaa inaad noqotid ninka ugu sarreeyo nimanka taas dhalinyarada ragga Soomaalida inay fahmaana waa wax meesha ku jiro marka ayaan waqtiga idinka dhumin bal aan daawano farxiyo oo ka hadlayso taariikh nololeedkoodii iyo waliba in ay xataa dhacday marka qaar ay ka fikiri jireen caawa hadday helaan meel isxdaan bari xaqay ka heli doonaan waa arrimaha nololaha ugu hooseeya waayo uu qofka soo maro laakiin qofka hadduu u dulqaato nololahaas wuxuu noqdaa inta badan mid successful ama aflaxa ama guulaysto marka aan wada daawano klibka يعني markii koowa bilaaw waa nolosha ay adkeed waa ma fahanteen markaas $1 ii soo diray sambuusa u dalbe bas markaas oo dhakaa ila soo cun maya hadda warqadana urneys ana cunayaan ana cun beena ii sheegtay ana walaa gaaji darteed waa wareeray laba maalin wax ma cunaa maleena waa wareeray waa asaa dhahay cun sidii ku cunaaday markii dambe ugu sheekeena mugtaa yacni baahi adaga soo marnay war waxa soo marnay nolol oo qof maanta Soomaali ee mareen inay jirtaan ma bayla aan anaga nolol soo marnay weyna gaari aan wallahi rafaad adduunyo waa soo marnay ma fahantii maanta waa يعني في ina badar cunno iska dhaaf aday badarka hadaa weyn taas macna ma bana lahayn balaa waxa ka fikiri jirnay lacag ma haysano meelaad joogna male guri ma qab ma haysano markaas asxaab la joognaa inta jiifanayna markaas waxa ka fikirayna caaw markii inta waaga noogu bariyo habeen dambe inta seexanaysiin habeen dambe inta la aadi doona wareer iyo mushkilad adan asxaab kala raadi guri kala tag qof duruuf ku rabto malaad ma ogtaa cid walba marka u tagtid waxa waa laba maal qofka wajiga ku bedelana rafaad iyo silac marbacid u taga wallahi waa soo rafaadnay badar ma ka fikiri jirnay waxaan ka fikiri jirnay intay caabul madaxa intay dhulka dhigaysiin caawinta seexan doontiin marmar waxa iska leenahay baawurta gaarigana dhex seexana asxaabta baawurta noo keentay caabal sa ku waabrisana wallahi rafaad adduun hadda waan xaamilo uurkoodana leeyahay anna markaas uurkoodana la aad iyo aad waliba waxanuunsaday waa xataa dadku waa yaqaaniin waaga saa u ekaaday bismillaah waa caadi waxaan laf iyo maqaara noqday ma fahanteen marka nolosha anaga aan soo marnay nolol asxaab horta ilaahay khayr ha siiyo anaga waxa jireen waagaas waxba ma tiri jirin hanti ma jirin laakiin garab istaag iyo qosol idriso halaas ibka amareenin hal maalin murug ma jiri jirin tooni faa isku qosli jirnay waxa kaliya ku dadaali jirnay cadayga iyo catarka ku dadaali jirnay ma fahantii catarka dharka waa guriga tagno wallahi waxa jiri jirtay mara ma aragt inta xirna asxaabana waqtahay mara waxa ku bari jirnay gabsaar inta qaban waxa soo gadanay gabsaar iyo macaan lacagana soo gashay maalin fahantii wili anaga ma ahan gabar saaxiibteen oo tiimkana la socdo kamid lacag keentay waxa waa baxna maxaa lacagtan maxaa ku sameeynaa marka waxaan dhahnay
waxaan sameynaynaa wiilashana 4 macwiis oo soo gadno anagana gabsaar idraacyaal aan soo gadano walba ciidaha u tagayno yani meelaha sayxana bisle aan ka helnay dhar aan ku dhibin ma fahamtay waxaa sameyn jirna marka dharkii mara xiranaa wadanaa cid kasta u dagoonaa ha intaan siinta sayxarabna qolkaan ay digiliya waa nin walba meeshiisu sayxana dharkeena yaa furaneena geedi guurayna subax waaga bariyaa cidii jaaga furka taaganaysa anaga isla markaa waa ka carreynaa waa istaawanayna cidii waa dad baahan waa dana kibirsanayaan waxaan fiir